waxaan u mahad celinayaa bahda warbaahinta kala duwan ee Soomaaliyeed khasuusan bahda goobjoog ee u taagan bulshadan dhibaatada ka taagan iyo dhibaatada haysato kala duwan taa kadib markaan ka soo gudbo waxaan rabaa ilaaha mahad iska leh inaan u mahad celiyo qolooyinka gargaarka oo dadka tabaalaysan wax u gudbinaya waa mahadsan yihiin laakiin waxaan rabaa waxba ka qaldan inaan u saxo dadku meelahay kala degan yihiin deegaanada waxa jira dhul dalagyo ka soo go'een simbi horta waxaan haad ugu mahad celinayaa Khadiija Maxamed Diiriye oo Buuliburto maalin weed diyaarad 100 kiish ugu dhiibtay waxaan rabaa marka 100 kiish diyaaraddu waxay ku kareysneed 7500 badarka hadda Buuliburto ka soo go'ay masagada ka soo go'dayna kiishkii wuxuu joogaa $35 $35 7,000 equal ku qaybi waxay tagaysaa 214 kiish waay 214 kiish iyo 100 kiish farqiga u dhaxeeya inay dareemaan dadka gargaarka u qaybina dadka ay dareemaan la rabaa war 100 kiish markii loo qaybiyo calaa kiish 2 qofood la isku siiyo waa 200 qofood 214 kiish markii calaa qof 2 qofood lagu siiyo kiishna 428 qofood ay tagaysaa waxaan soo jeedinaa marka waxa dadweynaha ama dawladda deeqaha bixiya oo dadka u gurmanaya lacagaha ay diyaaradaha ku kareynayaan dad badan ay nooleeyaan waxaan rabaa marka lacagahaas wadanka meeshay rabaa inay ka bixiyaan inay dad intay dirsadaan dalaga meeshay ka baxay ay u gadaan dadkaas lacagtii diyaarad ku kareey lahayd ay dalagaas loogu gado kii wax la nooleynaa wax la siinayna wax weyna ay u galaysaa kii dalaga soo saarana dhiirigelin u noqonaysaa marka waxaan soo jeedinaa waxa in laga waantoobo oo la iska dhaafo 100,000 kiish in diyaarad $7,000 $7,500 loogu kareeyo waxa ka fudud in lacagta kirada 214 kiish oo calaa kiish $35 uu yahay ku dhufo intaas in loogu qaybiyo dadna waxay u galee kan la siinayo baahana waxay u galee kii dalaga soo goostana dhiirigelinay u tahay tacab kale u sii galaa marka waxaan soo jeedinayaa yaan ummadda dhaqaalaha ku bixi lahay aysan meel kale aadin ummadda dhaqaaluhu say u galaan waa inay dad dirsadaan u gada raashinka dadkaas taas markaan ka gudbo waxaan rabaa inaan galo madaxweynuhu heshiisyada wada waayaan waxaan isleeyahay horta sideedaba heshiis waxa ka horeey aan wada hadalna aan heshiina waxaan rabaa marka wada hadal Imaaraad ka dhacay heshiisa ka dhacay Turkiga ka dhacay heshiisa ka dhacay wuxuu ka dhacay meesha la yiraahdo Eritrea waxuu kale ka dhacay ugu dambeeyay Kenya waxaan rabaa marka wixii lagu heshiiyaa waa in fulaan ummadda heshiiska lala gelayo ummadda loo gelaana waa in heshiiskaas wuxuu yahay ay wax ka ogaato marka waa soo dhaweynayaa heshiis kasta oo ummadan lala heshiinayo oo ummadda dhaxteeda inay heshiido ee diriska la heshiido ee adduunyada la heshiido waa soo dhaweynayaa ummadana waxaan u soo jeedinayaa waa ummad islaam ah localkeeda inay shariicada islaamka ilaahay malkiyay ku dhaqmaan ummadana taasaan u soo jeedinayaa marka nabadda way ka waran heshiiska dhigaya in la fududeeyo isdhaafsiga labada wadan isdhaafsadaan kalluunka iyo qaadka si sare loo qaado iskaashiga ganacsiga labada dal horta dal markuu wax ku soo iibgeyna adna waa inuu wax ka gataa ina kaliga adiga lacagtu ka baxta ma ahan
waxaa micno leh in dalkaas wax kuu soo iib geysto adna aad u wax iib geysato markaasaa la kala faa'idi karaa heshiis la dhihi karaa laakiin dal kaliyo inuu wax la yimaado asagu oo adiga lacagta kaa qaato heshiis maana dal gaar ah loo danaynaa marka waxaan soo jeedinayaa in isdhaafsi buuxa heshiis ku fadhiya inuu dhaqan galo abaartaan horta abaar rabaaniya in ilaahay la baryaa ka horeysa ilaahay ha la baryo laakiin meel heshiis iyo nabadgelyo ka jirto in wax la gaarsiiyo waa fududaanay nabadgelyadiina waxa ka horeeya horta in la wada hadlo markii la wada hadlo heshiis ka dambeeya waa gartay khilaafkii Soomaaliya iyo dawladda Itoobiya aan dawladda Kenya kadib waxa istaagay duulimaadadii diyaaradaha ee dalka Kenya ka imaanayay Soomaaliya hadda waxa lagu heshiiyay la fududeeyo isku socodkii labada wadan sidoo kale Kenya Airways iyo Soomaaliya toos u shaqeyn doonto balka waran maxaa faa'iidaha u jirta Soomaaliya in la fududeeyo isku socodkii ama diyaaradii Kenya ka shaqeeyaan ama kol bilaw ganacsiga ugu weyn oo dalalkan dariska la leeyahay Soomaaliya la leedahay Soomaaliya Kenya hanti badan ka taala dadka deganna boqolkii 20 waa Soomaali Kenya marka waa dad isku xiran ha kala duwanaadaan laakiin dad Soomaaliyeed ayaa hanti badan ku leh meesha oo shirkado waaweyn ku leh oo Soomaalida NFD degto dham waa Soomaaliya la dhasheen waa soo dhaweynaya waan heshiis fiican waa laakiin waa in la dhaqan geliyaa waa gartay si guud marka u fiilisantay qodobada lagu heshiiyay oo si qadaan firmay oo ganacsiga dulmaadii iyo tan kale ahayd geeska Afrika ee Soomaaliya lagala shaqeeyo xaaladaha bini'aadanimada ee gurmada ugu sameeyay bal heshiis guud marka u fiilisay miisaan ahaan yaa faa'iido ku qaba Soomaaliya Kenya heshiis sidiisaba cid kasta oo nabad u yahay heshiis kasta cid kasta oo faa'iido u yahay laba dal oo heshiiday ayaga faa'iido u yahay laba dad oo heshiiday ayaga faa'iido u yahay nabad cid kasta ay dan u tahay colaad cid ay dan u tahay ma jirto cid kasta aan wada hadalno aan heshiino waa nabad cid kasta ay dan u tahay وقت السجود كلا سنة حتى من حين الصومالية حتى الشيخ محمود دبوا بالله إنه سوء الحديدي خرج إنه مش دولة كويسة. دل كان هرتا شنتي سنة جدو كدعي شنتي سنة سجود كيلوغو صار أنا وعدك وفقت وقتي قادني صار لكن دال بدن على الربع وحلو بها يا مرك الصجا ودالوها لكن حكومته لسايو إنه كوعي جليو إنه تهي أديك الشعب أي سنة هي كوح hadday wax kooxuleed ahay sidii kuwii soo maro kale ay yihiin oo tii hadda ugu dambeysay ay tahay ee ka mid tahay wax kooxuleed hadday yihiin ay noqdaan dalkan iyo dawladnimo way isdaayeen waa in laga ilaaliyaa wax kooxeed waa in laga dhigaa adeega shacab xukuumad sharciga international law waa adeega shacab xukuumadu waa qodobka labaad nabadgelyo iyo dawladnimo waxa ka horeeyo aas u ah in horta cadaalada la saxo kulii adeega garsoorka la dhiso dadkii aqoonta iyo khibradda u lahaay la keeno oo hore way aragnimada ah dadka joon yeeriska ah ee hadda ordaayo ee diyaaradaha lagu keenay qaarkood ee hadda dadkii hor fadhiya in inta laga wareejiyo dadkii hore ayaga wax baraan marka dadkii hore ay aqoon laga faa'iideystay leeyahay inay qaabkii markaan u shaqeeylaan in la bara la raba Soomaaliya ganacsiga ugu badan waxay ku leedahay Kenya ee duulimaadka ugu badan oo Kenya la aadaa Itoobiya iyo Kenya waa laba dal oo dirisa dad Soomaaliyeed degan heshiiskoodu waa muqaddas in la heshiiyo waxa ku soo horay ganacsiga cid waliba waxay ka ganacsan jirtay ayada laga rabaa inay tayeysato ay horumarsato ay cid kale ka gado ma jirtaa marka faa'iido ay ku qabaan ganacsatada Soomaaliyeed ee jaadka ganacsada in jaadka Soomaaliya loo soo dhoofiyo ma jirtaa in Kenya nafteeda faa'iido ku qaban karto kalluunka loo dhoofiyo labadaba laba faa'iido ugu jirto sababtay dadka ganacsatada jaadka meel ku gada ilmay wax ku waxbareen ilmay ku soo koriyeen inkastoo dhibaato dalka ku yaan ogahay haddana ilmay ku waxbareen ilmay ku soo koriyeen agoon ha ahaadaano kuwa odayaashood ka tageen ha aadaano ilmay ku soo koriyeen kuna soo waxbareen wuxuu yahana culimadu dalku leeyahay wuxuu yahay culimadu ka baraarujido dhaxgeli maayo laakiin ganacsigaas sideedaba qofku inuu baaga muudayo meel fadhiyo iyo inuu wax faraha kula jiro ilmihiisa ku dabarayo waxa ila qumoon inuu ilmihiisa badabaro